السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabteeda sharafta leh, subax wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, waqti walba idin tahay ha idin wanaagsanaato insha Allah. xaaladiina ka warama, waxaan rajeynayaa in aad iyo aad u fiican tihiin insha Allah. anaga waa fiicanahay, ilaaha mahad iska leh. fiidiyoganiti waxaan diyaariyay subaxdii axada. anaga subaxdii axad waxaa waaye halka subax aniga ilmaha gurigaas la joogno, quraac iyo qado iyo casho. maalmaha kale intay isniinta ilaa sabtida way iga maqan yihiin, casho basay guriga ka cunaan. laakiin alxamdulilah maanta kale waxaa waa maalinta aad iyo aad ku jecelahay oo gurigeyga ilmaheyga ii joogaan oo qadada u karinayo alxamdulilah. anigana waa kana oo cilaan waxaa ku darsanaya dalwoondi, waxaas dhahay naag iska dhig ee cilaanka qase marsabal cilaana marsada goor igu dambeysa ma aqaano, walaahi waan iyaalay in badan. marka subaxdii markaa soo kacay iyaga quraacda hortee oo jikada waxaas dhahaye maanta jikada ka siinayso binayaan oo way qasayaan, laakiin alxamdulilah wiilal fiican iska dhigan way dadaaleen. anigi way kana waqadidii baan diyaarinayaa. marka waxaan isku soo darsanayaa 3 bur oo kala duwan. muufa raba maanta inaan diyaariyo. waxaa ku soo darsanayaa 1 xabo ukun, kabacdi waxaan diyaarsanayaa leevitadii biyo diiran ba halkaas ku soo shubay iyo sokor. kabacdi leevitadii baan ku daray, waxa yara qasayaa. leevitada markaan arko xoogaa yar inay soo fuureyso kale inta biyihii sokortii ku kacday, waxaan ku daray maxaa lahaa burkii 3 bur oo kala duwan. run ahaantii aniga burka qamadiga hadda dhawaa bilaabay inaan isticmaalo, laakiin ma aqaano maanta muufo oo bur madow lagu daray haddii cidda ay ka heli doona. laakiin wixii yaalaa yani waxaas dhahay u tijaabi, maxaa yeelay maanshaaniintii caafimaadkii laga fikir aad iyo aad u fiican tahay. burkii oo aan soo qastay muufadii waa intii soo qamiiraysa. hadda waxaan diyaarinayaa maraqii. markaan waxaa soo qaatay basal, saarkaysan basal gaduud jeexa yani ku dalacaya maraqa. marka xaaladiin ka warama maxaa meesha ku haysiin. run ahaantii aniga fiidiyoganiti maalintii waxaa soo geliyay isniinta, laakiin waxbaa ka qaldama waxayn ma garanayo. muusika yaraa soo saara marka waxaan maleynayaa copyrightka in yani la igu diida darteed way iga madoobeeyeen. marka mar labaad hadda soo gelinaya insha Allah. marka aniga hilibka maanta waxaan maraqa macnaha waxaan ku suubinayaa 2 nooc oo hilib. waxaan ku daray hilib iyo digaag insha Allah haduu ilaahay raali ka noqdo. marka waxaa dhahay fiidiyogii way iga madoobeeyeen oo gabadha arkay soo qorto commentiga dhehayso Nasro fiidiyoga qaybtiisa dambe ma la arkaayo. runaantan waa controlay bo marka fiidiyoga galiyo kanaalka waan controlaa inay yani wax kasta oo ka yihiin. ana markii ugu dambeysay wax walba oo ka yahay, laakiin ma aqaano gadaal dambe macnaha muusikadii ka diideena u maleynaya. marka dhib ma lahan maasha macaliish. marka hadartaan intiyaam cod kale korka ka soo saara wax dhib ma keenayso. aniga hadda hilibkii iyo digaagii waa soo jarjaray, waa soo yaryareeyay. marka waxaan dib ka soo saartay saliidii iyo jeex basal gaduud wax yaraan dalacay basashii. kabacdi waxaan ku darsaday digaagii iyo hilibkii. marka maadaama maraq muufo lagu cunayo yahay, hilibkii iyo digaag waa isku daraa oo maraq fiican oo masha Allah oo sustansiyos ka soo saaraan fahanteen. waxaa soo jarjaray hadaa saarkaysan zukiinaha iyo baradhada. haddana waa kaasa masha Allah waa ku darayaa. maadaama xoogaa yar basashii iyo digaagii hilibka xoogaa yar hadaa isku soo shiilay, hadda waxna ma shiilay maxaa yeelay maraq cad markaa karina oo muufa macanjeer lagu cunayo badanaa ma shiilo ma fahanteen. marka biyaa qarku soo saaray maraqaas kaligiisoo iskarinaya bilaa dhib. marka dibka soo gaabinaya masha Allah bartaasitiyo kaligiis iskarinaya. anigana way kana hadda yani inta yar oo alaab taalay ani hadda la isticmaalo, xataa alaab badan ma iitaano. inta hadda oo isticmaalo hilibkii wixii aan ku jarjaray bisa iyaalo intaasiti li hadda iska nadiifinaya. marka xasan yariisana waa kaasa masha Allah. ciyaalkii waa iga dheeraaday, arnaagaan dhibka haystataan waayay. aniga alxamdulilah waa ku faraxsanaa, laakiin masha Allah ciyaalkii waa i dhaafay, anigana bartii baan taaganahay. laakiin masha Allah maxaa ka fiican hooyo ciyaal dheer joogaan. wallahi billahi waa wax aad iyo aad loogu farxo. waa iska kaftamaya laakiin waa ku faraxsanaa alxamdulilah. allahumma baarik masha Allah ii soo dhaha idinkana. marka inta yareeda xoogaa yar iska masaxaya. jikadeedii waa dhamaystay. gloves baan bilaabay inaan isticmaalo sababtoo maxaa lahaa uumooyinka alaabta lagu dhaqaayo farhiba iga madoobeeyeen. marka waxaan go'aansaday inaan mar walba go'aanta isticmaalo. go'aanta waxa waaye gloveska
inaan isticmaalo si yani faraha madmadowga igaga ba-aan. inkastoo hadda treatment natural suubinooyo insha allah mustaqbalka waa idin soo duubi doonaa wix isbedela. hadda maxna ma idin soo hordhigay yani mi soo hordhigay laakiin waa idin soo duubi doonaa insha allah markii wax isbedelaan. shaqo badan ay gacmahayga ka haya hadduu ilaahay raali ka noqdo. idinkan waxaa idin leeyahay haddii alaabta ay dhaqdiin oo micnaha gloves la-aan alaabta ay dhaqdiin farahana ka madmadowdihiin cilada jirto waa intaasiit ogaada. oo mooyinka waxyaabaha wax lagu nadiifiyo waa kiimiko maqaarkeenana waa sensitive marka faraha waxay nooga madmadoobaadeen hadda lee fahme. ana weligii allahay gloveska asigu iyaala xataa weligii maan isticmaal sababtoo maba la qabsaninba. marka hadirtaanetiya waxaan tijaabinayaa yani inaan gloveska isticmaalo mar walba alaabta aan dhaqaayo ama nadaafad aan suubinayo oo yani waxyaabaha guriga lagu nadiifiyo isticmaalayo si farahayga micna madmadowga ay uga baaba'aan. marka insha allah idinkana waa idinla soo socodsiin doonaa wixii isbedelayo insha allah tacaala. marka idinkana sii dadaala yani gloveska gashtaa alaabta markaa dhaqaysiin iyo markaa guriga nadiifinaysiin. marka dhar ii warnaay habeenkii aan waray baan hadeertaaneti dejiyey saa arkayseen. dhar cadcad baa dhaqay dharkaanetiyaa waraya balkoonka 2 bilood adiga waxay December January iyo February hadda dhamaad 3 bilood oo balkoonka iga xirnaa shaqo laga haayay marka nadiifinayay iyo marka shaqada lagu waday iyo wax dhan waan maxal lahaa waan duubay insha Allah waa idin la qaybsanaya ilaahay idinkiis insha Allah waa idin la soo wadaagi doonaa. marka alaabteydii baa dhaqay dharkaygii baan soo dhaqday kii dhaqanayo qalaleyna waa soo xareystay alxamdulillaah. cajiinkii wuu qamiiray hadartaa waxaa bilaabaya muufadii inaa suubiyo. marka aniga muufa saliid la suubinaya muufa bir lagu gidgidinaya iyo waxaa sidmo isku wareerinaya maanta. marka alxamdulillaah maraqi waa kaasa dabkii gaabnaa wuu kusoo bislaaday. tuuntii basashii tuuntii iyo maxaa la dhahaa iyo cusbadii wixii dhan waa kusoo daray. basashii barbarooniga ku daray. Ibraahim iyo Xuseen isla ciyaarayna waa kana maasha Allah. maraqina wiilkan yar baa kusoo shubtay wixii dhan waa diyaar qadadii waa ii diyaar alxamdulillaah. maanta hadda waa waxa ku jeclaa saan waa ilaahay oo ilmaha noo weynin ilaahay familha noo weynin ilaahay inta maxaa la dhahaa ilmihiisani noo raadina ilaahay oo ilmo qeyr qabasi ilaahay gurigooda ciyaal ka qeyliyo ka ooyinsiyo habeenkii dhafriyo farxad siiyo ilaahay si aamin idinkan ila soo dhaha insha Allah. commentiga ugu soo duceeya dadka ilmaha raadinayo oo kasoo daahay inuu ilaahay si ilmo baariyo caafimaad qabo saalix ah. anigii waa qadeynay alxamdulillaah. muufadeyni marqeeni cabitaankeeni ilaa ma hadda iskale intaaniti markii aan dhameynay waa arkaysan aniga ciyaalka waan adeejiyaa marka idinkana ilmaha adeejiya. marka guriga kaligaa ku tahay waxaa laga rabaa ciyaalka inay iyagana qayb ka qabtaan hawsha maaragtay hawshana ciyaalka lagu qabto ma dhahay laakiin waxaa la baraa inay qolkooda soo hagaajiyaan go-sirarta ay ka bedeshtaan cuntada meesha ku cunaan ay ka qaadaan inay garab qosiyaan waa muhiim mar fahantay. marka cabdiqani qolkiisa hadda uu soo nadiifiyey yani go-yaasha sirarta kasoo bedeliyey walaalkiisoo yani barayaa sida hawsha loo qabto. kabacdi anigana jikadii baa kala tuusinaya meeshan waxaa dhahay wax yar kusoo tuur balkoonka baaldiga qashinka ayaa lagu kusoo rid maba soo noqonayo yani waxaa la ahaa meeshiisa iska taagan yaho waqti buu dhuminaya laakiin hadda wuu soo dhaqaya. marka alxamdulillaah meeshii maradii waa wasaqeynay cabitaan baa lagu daadiyay goore ku daadiyeen ma aqaan inta hore gadaal u socday waxaa ku dhaca maradii dhan baa la wasaqeeyay. marka hadda dhaqma u qaaday miiskii baa iska nadiifinaya aniga miiska barshiimano ii kor saarnaay laakiin hadeertan waa ka qaada sababto yani dhaqmay ku maqan yihiin waa soo dhaqaya. marka xoogaa meesho cunug yariiska kursiga iyo miiskii lugihiiba uu qabsanaya gacmihiisa asigoo buskud cuna asigoo wasaqeeye marka waa kana nadiifiya. marka way dareemi kartiin qofka ilmo yariis haysto armaajada meel walba iiga gaaraan waxaa laga dhigayaa dhiiqo socoto wasaq socoto howl maba dhamaato laakiin alxamdulillaah waa wax oo ku faraxsanahay anaga ilaahay nagu deeqay. marka alxamdulillaah alaabtii lagu qadiiba haltaas ii taalo horta cilmi deenayo mashiinka alaabta lagu dhaqanigoona soo gudin ima yaalo yani waa ina soo gataa insha Allah taala ilaahay idinkiis. anagii waa kana waqti dhudhumiyeeno Ibraahim la dhidheeleyno
meel walba waxaa ku dhaha kaasa farhuu la gelayaa armaajo walba furayaa oo soo faarujinayaa laakiin alxamdulilah waxaa ku dhaha wax oo ilaahay nagu deeqay marka ilaaha ma had iskala allahumma baarik marka maasha Allah waa kana anigii baa iska sheekeysanayno alaabtii baa dhaqdhaqeynaa hooshii baa qabaneynaa aniga la qabanayo qabanaa laakiin aniga la qabanayo waxa dhan aniga leeyahay Cabdiqani waa iga dhuunta sa arkaysin alaabtii wixii yani qashinkii wax la turtuuray la iga turtuura ma hinay qolkiisu aaday baa marka xaaq dhahay no stress alda ma fahanteen marka ilaahay mahadiis waa kasa Xuseena ila sheekeysanaya game u ciyaaraya gamekii oo ciyaaraya wixiisi waxaan igana fahmaynin baa igala sheekeysanaya laakiin alxamdulillah waa ku faraxsan anigana wixii ka sheekeysanay inaan ka sheekeysto marka Cabdiqani warkiisina ma leenaya fiidiyaasha ugu horeeyay asigoo yariso baby oo ku jirin haddana waa kaasa aniga asiga kor u dayay jikadii waa ka baxay dhulka la yidhi dhulka la ka hadhow dhaqa Ibrahim waqtiga la seexinaya la gaaray marka hoosh iska soo nadiifiyay jikadii wixii iska soo nadiifiyay waa soo baxna anaga yani wareegaas ka soo aadnay magaalada waxaa taalo festo waa la feesteenaya oo waxay qabaan festo la dhahayo carnival oo xaanshooyin la soo shiiday la isku firfirdhinaya islaamankaaniiti soo daalayna waxaa la dhaha kaalayo magaalada soo aada halka maalin ay haysatiin waa sanadkii kaalaya niikiya marka waxaa ku dhahay xoogooda waa kaasa islaaman waaweyn oo waxaa ku dhahay bilaashooda waaye laakiin wallahi waa dad oo energy haysto maaragtay oo madaalan da'ma yaqaanin Soomaaliyeed waxaan naqaanaa waa daala iyo qofiina ah iyo waxaan masuul bikri waxaas anaga naqaanaa moogtahay iyagana saas ma ahayn marka saas ay nooga fiican yihiin dadkana arkayso saan u niikinayo maaska saan u saaran markaysan jiniga waa dad waaweyn oo beeshinkii mar hore aaday oo sanadkii halka marka muna inuu lacag la sii lahaa kaalaya dadkaniit waxay u noqotiin joker aniga waa kana kafeegeygi waa lay keenay inta ciyaalka ciyaarayaan kafeegeygi iska cabaya badiba waxa qaadanayna aari nadiif ah السلام عليكم صاحبتي دوين السلام يا